assalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada waxaan ahay Ibrahim Aadam waxaa jiro waxyaabo haddii aad ku apply garayso ama aad noloshaada ku soo darto ka dhigaya mid fudud kana caawinayo waxyaabo fara badan waxaan jeclahay mar walba inaan idin wadaago ama idin soo gudbiyo wax kasto oo noloshaada wax ku soo kordhinayo oo aan aniguna ku faa'iideeyo wax kasto oo aan anigu ku faa'iido waxaan jeclahay in aan idinkan idin soo gudbiyo si aad uga faa'iideysataan marka waxaan jeclaaday in aan muuqaalkan idin kula wadaago 5 waxyaabood oo aan dareemay in ay nolosheeda ka dhigeen mid fudud ama simple ah waxaan hubaa haddii aad ku soo darto noloshaada in ay ka dhigayaan mid fudud ila dhamayso muuqaalkan hana gudbin sidoo kale waxaan kugu dhiirigelinayaa in aad kanaalka subscribe dhahdo ama aad ugu yaraan ku taageerto inaad hal qof gaarsiiso muuqaalkanna like-ta ka hilmaamin ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta haddii aan ku bilowno shayga ugu horeeya ee aan aaminsanahay in uu noloshaada ka dhigayo mid fudud waxay noqonaysaa Master or Visa card how marka sidee kaadadkan ay u dhacday inaan ku tilmaamo mid noloshaada easy ka dhigayo ama noloshaada fududeynayo si fiican ii dhegeyso waxaad u baahan tahay in aad online wax ka iibsato tusaale course ay rabtaa inaad iibsato ama waxaad rabtaa inaad alaab online ka iibsato ama waxaad rabtaa inaad maaragtay aad online wax ku iibso adiga ama waxaad rabtaa inaad investment samaysatid sida cryptocurrency oo kale ama trading oo kale inaad samaysid so Mastercard ama Visa card ama inaad haysato card bank nooc doona ha ahaadee yani waxay ka caawin doontaa in aad maaragtay online-ka aad wax walba ka samaysan kartid ama online-ka aad wax walba ku iibsan kartid sidoo kale waxaa jiro waxyaalo fara badan oo aad u baahan tahay oo laga yaabo in aad u baahato in aad iibsato sida applicationada qaar oo u baahan ama ka codsanayo in aad iibsato qaybtooda Pro-ga yani applicationada qaar waxay leeyihiin qayb free ah iyo qayb ay ku tilmaamaan Pro oo maaragtay aad u baahan tahay in aad iibsato si aad u isticmaasho sidoo kaleeto waxyaabaha hadeertaan aan aniga ugu tilmaamay in nolosheedu ka dhigay mid fudud ayaa waxay ahayd waxaan rabay in aan wadan kaleeto aado wadankii aan rabay in aan aado wuxuu iga baahnaa visa electronic visa inaan qaato marka viisihii waxaa dhacday haddii aan ka dalbado travel agents waxay ugu charge gareynayaan lacag fara badan tusaale wadankii ugu dambeeyay hadda aan rabay inaan booqdo waxaan u baahday visa ama electronic visa markii aan ka codsaday travel agents waxay ugu charge gareeyay ilaa lacag gaarayso ilaa $100 ilaa $80 u dhaxaysa ayuu ugu jadgaray wuxuu yiri lacagtaas aad u baahan tahay anigii go'aan ayaan qaatay anigii ayaa website-kii wadanka galay ee fiisaha laga codsanayay anigii ayaa fiisihii codsaday kadibna waxaan isticmaalay kaar bangigayga waxaan iga go'day lacag dhan $35 halkii aan bixin lahaa $100 ama $80 waxaan bixiyay $35 taasi maxay iga caawiyay inaan haysto kaar ama card bank so Master ama Visa card inaad haysataa waxay ka dhigaysaa qof noloshiisa ay fududaato waxyaalo fara badan oo aad u baahan tahay ku samaysanaysaa maanta adduunka technology ayuu noqday so haddii aadan maaragtay aadan online-kii aad waxba ku iibsan karin ama lacagtaada ay cash ku tahay ama EVC plus ay kugu jirto markaad wadankii joogto yani noloshaada ma fududaanayso noloshaada waxay noqonaysaa mid complicated ah yani iska adag ay noqonaysaa sidoo kale midna ha ilmaamin marka aan leeyahay waa inaad qaadataa card mostly dadka qurbaha jooga way haystaan laakiin dadka aan haysanin aan hadda aan ku dhiirigelin inay qaataan waa dadka jooga maaragtay deegaanada Soomaalida iyo maaragtay mostly dadka inta Afrika joogaba waa isticmaalaan mana qaataan marka waxaan kugu dhiirigelinayaa haddii aad tahay qof dhalinyaro ah inaad maaragtay ka taxadartaa ama aad qaadataa inaad card haysataa aad ku dadaashaa horeyna waa soo sheegnay waa horta ugu horey inaad haysataa bank account bankiga aad ka samaysatay accountiga sidoo kale ka codso inaad card ka qaadatid midda labaad oo aan leeyahay nolosheeda fudud ayay ka dhigtay adigana aan kugula talinaya waxay tahay isticmaalka applicationka Canva inaan isticmaalo nolosheeda wuxuu ka dhigay mid fudud haddii aad tahay qof business ah haddii aad tahay qof maaragtay shakhsi ah haddii aad tahay qof business ku jira ama haddii aad tahay qof caadi ahba labaduba uu ku anfacayaa barnaamijkan Canva waxaad ku samayn kartaa barnaamijyo fara badan ayaad ku samaysan kartaa wuxuu leeyahay qayb free ah iyo qayb lacag ah haddii aad tahay sidoo kale qof YouTuber ah ama social media ku jira yani Canva wuxuu ka caawin doonaa inaad ku samaysatid barnaamijyo fara badan haddii business aad tahay waxaad ku samaysanaysaa posterada muuqaalada maaragtay ganacsigaaga aad waxaysiisa rabto ama commercial videoska yani many things ayuu ka caawinaya haddii aad business ku jirtid haddii aad social media ku jirtid sidoo kale ama YouTube ama Facebook isticmaalaysid waxyaalo badan oo ka caawinaya hadda anaka YouTube-keena wax badan ayuu naga caawiyaa Canva so Canva makes my life easy sidoo kale waxaan aaminsanahay inuu noloshaada adigana fudud ka dhigayo ani barmood uma sameeynayo yani ma haysiinayo Canva mana aqaan cid iska leh Canva laakiin waxaan aaminsanahay in noloshaada ani fudud ka dhigay anu lacag ma siinayaan yani barmood uma sameeynayo aniba lacag iga qaataan anigaaba gatay oo maaragtay lacag ku bixiyo laakiin waxaan aaminsanahay in noloshaada ay ka
dhigayso mid simple ah waxaad ku samaysanaysaa posterada waxaad ku samaysaa hadii qof xataa qoraa tahay ama social media dadka kula wadaago yani waxyaalaha qormooyinka yani there's many things oo ka caawinaya Canva. So Canva makes my life easy. mid saddexaad aan aaminsanahay in nolosheeda ay fudeed ka dhigtay qasabna kuwa ah oo aan aaminsanahay in noloshoo dhan ay ku xiran tahay qarnigan la joogo iyo 2024 waxay noqonaysaa English noloshaada wuxuu ka dhigayaa mid simple ah oo iska fudud. haddii maanta English aadan aqoonin waxay ka dhigan tahay in aad wax badan aad dambayso. English is the key today. marka inaad English barataa ama English aad taqaanaa ama course English aad qaadataa noloshaada waxay ka dhigaysaa mid fudud. sidoo English noloshaada fudud oo ka dhigaya marka fiiri haddii aad rabtid inaad online wax ka iibsatid haddii aad rabtid inaad dad la xiriirtid maaragtay ajaanib ah oo aan yani wadankaaga u dhalanin haddii aad wadan kale u safartid haddii aad rabtid inaad wax akhrisid haddii aad rabtid inaad wax baartid everything waxay u baahan yihiin inaad English taqaanaa. haddii aad rabtid xataa inaad shaqo apply garisid ama wadan kale inaad shaqo u aadid haddii aad rabtid inaad adigoo wadanka Soomaaliya laftirkiisa jooga inaad shaqo maaragtay sida NGO-yada ama hay'adaha kale aad apply garisid English is the key. So English maanta haddaadan aqoonin way ka dhigan tahay inaad aad u dambaysid. sidoo kale waxay ka dhigan tahay in noloshaada ay tahay mid complicated ah oo aad u adag. so noloshaada si aad fudeed uga dhigtid English waa xoog saartaa. waxaa jiro podcast aan soo saaray muddo hadda hal bil laga joogo qaybtan kore ayaan soo saari doonaa waad dhegeysan kartaa. waxay soconaysaa ilaa muddo 23 daqiiqo ah. waxaan ku sharaxayaa sida ugu fudud ee aad maaragtay luqadda Englishka aad u horumarin karto. yani waxyaalo badan ayaan oga hadlayaa. sidoo kale waxaa jira muuqaalo kale oo aan soo saaray ilaa dhowr muuqaal gaarayo oo aan English oga hadlayo. so dhammaan muuqaaladaas haddii aad dhageysatid podcastgaasna aad dhageysatid waxaan aaminsanahay in Englishkaaga oo fududaan doona ama maaragtay Englishkaaga aad wax ka bedeli doonto. muuqaalkan qaybtan kore ayaan soo saarayaa linkiga haddii aad rabtid ama qaybta descriptionka ayaan soo gelin doonaa haddii aad rabtid soo dhageyso. waxaan hubaa in wax ka bedeli doono. so English makes your life easy. mid afraad aan rabo inaan kula wadaago noloshaadana fudeed ka dhigayso waxay tahay understanding the basic things. in aad fahmi kartid waxyaalaha basica sida maaragtay qof markuu kula hadlaayo ama wax kuu sharaxi rabo inaad wuxuu qofka kuu sharaxayay aad wax ka fahansan tahay ama waxbaad rabtaa inaad baratid ama waxbaad rabtaa inaad wax ka ogaatid. qof kaaga wanaagsan wixii ama kaaga fiican ayaad rabtaa inaad wax ka weydiisid. marka wixii waa inaad adiga sii og tahay waa inaad basica wixii sii og tahay qofkan wuxuu kugu darayo aad leedahay markuu kuu sharaxayo okay sax waay sidaas waay haddan fahmay inaad leedahay weeyaan. laakiin haddii maaragtay qof aad wax weydiinaysa ama qof wax kuu sharaxayo haddii aad wixii u baahan tahay in from scratch lagaaga soo bilaabo oo maaragtay lagu yiraahdo waxaan waxa la yiraahdaa sidan kan waxa la yiraahdaa sidan tusaale basic computer ko kale yani inaad computerka basicgiisa aad taqaan aad isticmaali karto. dad waxaad arkaysaa maanta dhalinyaro ah oo maaragtay oo qof weyn ah oo maaragtay computerka hadduu la kala furo haddii uu daaro xitaa meel uu camera uusan garanayn yani qof waxaad arkaysaa noocaas ah oo maaragtay computer xataa meel uu camera uusan garanaynin haddii xitaa telefonkiisa wax yar ka qaldamaan aan cilad baxsan karin ama hagaajisan karin ayaad arkaysaa. so marka waa in noloshaada si ay simple ama fudeed u noqoto waa inaad basic things taqaanaa. sideed marka u ogaan kartaa arrintaasi sideed maaragtay noloshaada fudeed uga dhigi kartaa sideed u baran kartaa basic things. Google-kaad ka baari kartaa YouTube-kaad ka baari kartaa. maanta uma baahnid inaad qof wax badan weydiisid. maanta 2024 uma baahnid inaad qof wax badan weydiisid. waa inaad wax walba og tahay yani wax walba internetka ku jiraan wax kasta waad ogaan kartaa wax kasta u baahan tahay inaad wax ka ogaatid maanta waad ogaan kartaa. kaliya YouTube tag ku qor kadib waxaad rabtay halkaasaad ka ogaan kartaa ayadoo lagu sharaxayo. noloshaada ha limit garaynin. sababta aan ku leeyahay English noloshaada fudud ay uga dhigay waxay tahay wax kastoo rabtid inaad ogaatid YouTube-kaad aad ku qortid Soomaali kuma helaysid. haddii aad rabtid marka Soomaali bas inaad wax ku baartid noloshaada limit ay noqonaysaa mid xadidan ay noqonaysaa. marka noloshaada si aad u noqoto mid aan xadidnayn waa inaad taqaanaa luqad international ah oo aad ku heli karto wax kasto. English xitaa hadduu kugu adag yahay carabi baro waxyaalo badan oo rabtid inaad ogaatid waa ku ogaan kartaa. buugaag badan oo carabi ku qornaya jiro oo akhrin kartid. waxaa jiro yani wax kastoo rabtid inaad baartid oo ku baari kartaa carabiga laftirkiisa. laakiin ani ahaan wax ku wala talina waxay tahay English. so qof kasta uu ku fahmaya xitaa qofka carabiga ku hadlo English ku fahmaya qofkii English ku hadlayna ku fahmaya qofka luqad kale ku hadlay English ku fahmaya. so marka yaan isku dhex darin labadan shay laakiin basic things inaad fahantaa waa wax aad maaragtay muhiim u ah. mid u dambayso oo maaragtay ayadan kugu daraayo oo noloshaadana fudeed ka dhigayso waxay tahay learn how to say no.
inaad barataa sida maya loo dhaho noloshaada ay ka dhigaysaa mid fudud. yani fiiri, haddii wax aysan naftaada rabin oo qofku la yimaado ku yiraahdo waxaan kaa rabaa inaad ila qabatid ama hawshan aan rabaa inaad ila samaysid, haddii naftaada ay ku dareemayso waxani inaysan waxba kugu soo kordhinaynin, waa inaad taqaanaa sida maya loo dhaho. haddii maaragtay wax kasta oo qof kasta kuula yimaado haddii aad horay haye ka dhehaysid ama wixii aad qofkii ku raacaysid, yani noloshaada is complicated, way adag tahay. howl aadan shaqo ku lahayn ayaad faraha la galaysaa, dhiiqa lagu gelinaya, fahamtay? marka waa inaad dhihi kartaa maya, waa inaad taqaanaa maya. waxaysan dan kugu jirin waa inaad iska dhihi kartaa maya, waxaan anu kuma jirin. so learn how to say no. anu alxamdulillah ku fiicanahay, yani cidna iguma qasbi karto waxaan rabin. so learn how to say no. shantaas shay ayaan jeclaaday maanta inaan kula wadaago. aan aaminsanahay nolosheeda ay ka dhigeen mid simple ah oo fudud, oo sidoo kalena aan aaminsanahay adigana noloshaada ay ka dhigayaan mid fudud haddii aad ku apply garayso ama aad ku soo darto. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. waxaan kaa codsanayaa inaad kanaalka ku soo biirto, ugu yaraanna aad hal qof la wadaagto muuqaalkan. like taa ka hilmaamin. asalaamu calaykum.